بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت وعن وناكسن سود هذا صاحب يال وهان ربعنا إن لو وداعو حقول وجودن بيجي حال كذلك الصومالية. ما أنتي فردية أو هاللي أو لاس عانك هاللي أو شعب كير لاس عانود سدينية قلب بالورنيا أخلبين يا مانت. odayaashii dhaqanka ugu dambeeyay Puntland oo go'aanka ugu dambeeyay qaatayna oo soo bandhigaya sidoo kale maanta waxaan soo bandhigayaa Soomaaliya markii la yiraahdo haddaad maqli jirteen waxa Soomaaliya waxa laga yaqaanaa oo duwaan galshada duwaynu yaqaanaa diriya daarood hawiye xagee ka yimi waa su'aal inii taasha aniguna qodobaan kale leeyahay oo ka faahfaahinaya baritaan qodobada guud gelin balaalka firdhiye ila dhageysta madaxda qaranka ugu horeeya madaxweynaha iyo prime ministerku maadaama ay arkayaan reer waqooyi bari inay agarka arrinka u qaateen inay victim gaar yihiin ama dad ayaan iska garanayn ay faquuqayaan oo takoorayaan oo victim ka dhigayaan labaduba waxay si joogta uga hawlgaleen in mashaariicda horumarinta laga hirgeliyo waqooyi bari marka hadiiba ay wax inaga dib dhacayaan ama ayan inoo imaanin maaha in xukuumadda hadeer jirtay iyadu ay sababteeda leedahay maaha World Bankiguna reer waqooyi bari colaad gaar ay dhibaato gaar uma qabo waxaan Soomaali baa la siiyay iyaguna waa Soomaali xilligii lagu heli jiray bay ku helayaan ama ka horeysa hadii la ka dhigo waayahay waxaad kaloo dhageysataan hadalkii ugu dambeeyay oo Puntland waa kane ila daawada dhagaro maqal laga filmayo hooyada Puntland oo garowe inay Puntland tumiso laga filmayo dawladda hadda joogta oo Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha ka u yahay mid teerabkii bay joogta 2 sano iyo bar ay hadda joogta Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweyne ka ah 2 sano iyo bar buu hadda soo joogay 2 sano iyo bar baa hadda u haray waa taageersanahay waa kula shaqaynaynaa قرب يقاشان باونهاي هيلي هو باونهاي نكي هنقولي هايو وقتيس حسب وياهي سؤال هذا مركه وقضبينيا صدح قضبوي مدوا السؤال أنا وحمان كورنيا مد السؤال شاهو وصوماليا دريا دارود بالو يقاناي حوي ميشو كيمادي منو فردي يا هذا الكيس منو هذا الكا بانكا وقدم بيا وبدلان وعنوهر مريا فيديو سيدادا waxaan maqli jiray in la riyoodo waxa ka horeysa in la seexdo dadka reeyaysi oo qaatumo oo aan magaca laga sidkaday dad khiyaali ku noolaan kara ma waa ka weyn magac dil iyo bahdil iyo masabtinimo xumo waxa ugu filan mid aad u soo jiiday ayna ka aqbalee مشاريعنا صدح سيستم بالوجو يلا دولة توس والوجو يلا مشاريعنا دونك كتبادا وأنا والوجو بحشة معمول قبلات السنة عادي أنا والوجو بحشة عيدا برنامج شكله ده واحد لوجو فلاني يلا والوجو سمعية بوق دولة وأتساعك كتشرته أساسي قاتو كتشره ودو إنجليزيين ما شرتو شرعيات ماشى على الله أبو ري oo SSC qaato magaciisa looga bedelay loo baxshay waqooyi bari waxay ahayd horta caqabad iyo dhibaato iyo burburin Puntland bay horta ahayd dadka reer SSC ama dhul baahantana way ogsoon yihiin taas waana ka farabuuxsaday waana ka dharagsan yihiin 4 iyo 5 maaqa waxay tahay mashaariicood oo garguurtay reer SSC qaato waa ka reebay baa jirta maanta maada af ugu keenaya ما ويلي بالوي حقا كان قادو مشاريع هذا واحد وي هذا يدي بدعضي حمادنينا دولة فدرالك معايا الجمهورية فدرالك معايا مدحوينها رئيس الوزراء معايا أيوم معها فكتر معها كار لقو حقارية معها وعيو نوع اسكاهن تعود تلع عقلي انقل كريم باتكو هالش دولة فدرالك حقا شوكتا حقا كو عبد السطح يايتا ياي كده حيسا ياي كشغيسا حاجه كشغيسا ياي سو شغيسا dadkaas marka horaad qaradeen
magacii baad ka qaladeen masabkiina waad ka qaladeen waxaad dabacdeen colaad raagta oo aan soo rogman oo aan heshiis iyo nolol iyo walaalnimo iyo dhalasho midna dib dambe aan loo kala qaadan inaad dhex dhigtaan Puntland iyo SSC inaad dhex dhigtaan daarood inaad dhex dhigtaan harti laakiin ilaahay mahad waxa la iskama hadlee wali rag baa nool garaad jaamac garaad cali iyo dadka reer Puntland iyo dadka reer SSC ba waxay ka fara buuxsadeen dajiyeen meeqaamka xaalku sidoo u socdo markay arkeen in meeshaas kuwii shalay isku godka hiilka isugu helinayo garabka saa u sinaa maanta in ayaga la iska soo horjeedin waa ka fara buuxsadeen dagaalkiina sidaas oo halkaas kaga baaqday oo ku barjaray mashaariic loo soo wado iyo wax lagu tixgelinayo iyo maamul loo aqoonsan yahay midna ma jirto hawiya saakay ama xasan sheekh maxamuud basaakay wuxuu ogol yahay maamul goboleed sharci ah oo halka taaganoo daarood aqligaas yuu galaya yuu ka soo bixi karaa yuu ku shaqeynaya waa aqliga firdhiya oo la calool buuraya adeero marka caloosha hawiyaad uga egtahay qof daarood caloosha inta la egtahay mooda hal riman oo gurin ah ma jirto lama hayo xaraan bay ka tahay waxaan rabaa marka inaan kuu sheego SSC qaatumo sharaftooda iyo karaamadooda horaad ugu ciyaardhaa dib damba ha ugu ciyaari firdhiya intaasaan leh Puntland odayaasha Puntland u jeedaan waa kaba dambayn wuxuu yidhi odagaanu waa ninkarmeed dhalay runta horta sideedaba haddaad aragto qofku inuu runta marku sheego waa hadalku waa runkamaraysti sidiisaba haddaan hadalka runta laga sheegin oo been laga sheegana dhibaato iyo khalalaaso iyo qurnimo lama waayo runta wuxuu yidhi Puntland horta Puntland ciddii dabacda inay caqabad iyo dhibaato ka dhex samayso waxaan u diyaarsannahay ku garab taagannahay annaguna aan kaga horraynaa sidaas kaga qaban lahay dawladda wuxuu kaloo sheegay madaxweynaha ama xukuumadda Puntland inay u dhiman tahay 2 sano iyo bar 5 sano 2 sano iyo bar inay soo cuneen 2 sano iyo barkaasna inay si sharci ah oo waafaqsan oo dastuurkeedu farayo in xuduudaheeda iyo deegaamadeeda iyo shaqadeeda ayadoo ay madax bannaantahay dawladdu madax bannaantahay ciddii ku faragelisana ay caqabad tahay caqabad ninkii doorasho raba oo musharax iska dhigaya dadkaan iska gadi kara dagaal iyo caqabad iskagama gadi kara wanaag iyo kasbashu iskaga gadi karaa waxaan garab taagannahay hadday duulaan tahay gacmeed hadday dhaqaale tahay hadday mid afeed tahay inta waxaan ku garab taagannahay dawladda Puntland nasabnimo 2 sano iyo bar ninkii soo ordayow oo hadda nagaslo oo dadka qaar baa wuxuu qaban 5 sano dhamaatayba waa majnuuniin aqli badan lahayn oo xinkii intuu ka batay qaarkood qaarna cadaawad ay qabaan kar dhaaftay baa waxa loo qabaa waqtigu dhamaaday ma ogaba inay si koow jooginba 2 sano iyo bar oo hor la hadhay xukuumadda Puntland 2 sano iyo barkaas madaxweynaheedu haddii rabbi idmo waa dani bagaliba cid kale ma aha ciyaar mood biyo caana buura inba waxa laga sheegay hadda ka hor ciyaal baa ka sakaraaday oo xogaa galay waa xilli abaar ah dhacday marka wuxuu soo jiray caano galay caana buurahani waxaan maarta uu ka faari jiray abaar baa dhacday markaas geeli narka u qaad qaarna waaba gurayba wixii irmaanaayo xaaskaana waa baabeen maalinta baa liuriya carruurtu ka baaba'aysaa meel caana buur lagu qiiminayo si ciyaalkii wallaahi wuxuu iimu soo xidhay dambe caana buxeere qoxooti ciyaalkii loo kixiyay marka hore ka baabeen abaar baa yidhi markaas wuxuu dambe wuxuu yimid ciyaalkiisiiyo de far ciyaarahaya caana buurane maba aaminsanayn ba intii ilma ku cabaan
نوراني ما بأمسنا قشن بكامسنا هذو كان أنت قشن الوسيل ما قسي من نورانيا قشن يضعي بلاي قشن واحد ما تقارن ده واحد ما فعلا هذا عروض سيسته سو كمان عنصرية ولا أمسنا بقى حدي المكويس عنا الدميان إلي ده كوي كربراء تها المي كل ما نيو وعد على مركا سويد محوين المهيو كارس كارو قرعة أنا بقول له العلا ساسو تفشي ولا عيار مود أنا بوره أو إلا أنا بورو أنا أحي هذا تذكر أو مقرطة هاي عيار مود بلان حكومته وحوا هذا اللي وصل يبر بلان ما أهملها أنتي لدار داره ده اللي سيق عرّيو سيدا باشي وقاله كفر قلب مياه ميلا عاصو قاله تطبق ويرو وحبرتيو أيقو دال كان يدد كان البح إنساكا ميلا البح لقا هاين البح نمادو ماشي البح نمادو الدشي أس كيدي أسكن كيدو وعها إنساكا لوغا عبسي قبو تان وممريني ورمت وإلهي بان وجه على واسكوغي حقيقة تاسعي تاسوالك هاسي بلان تاريخ ما تشيرت مركا مانتا دقايسة وركايان قف كستو تاريخ دان قادو صوماليا ديريا دارود بيو قيب سنين هوية حقيقي ورطوا السؤال اللي تشيرته بيش هوية كيني أنا قصة هدان في شيء هوية ديريا دارود وواحد دوان قرسونو اللي يقان مركا هاد اللي هذا ديريا دارود مركا الله صوماليا هوية ما فرع ما كفر عمي بعطيه دير مستدات كفر عمي بعطيه الدارات بلهوية وماشى في كواب ترسطه نشين أنا هو جرمينه ما له تاريخ ما نوصل عليه حمام بارناي إلا الصومالي مركلي هذا تذكر الصومالي ودير يا دارات ما مقال دير يا دارات يا هوية ما مقال إلهي ما له وهو حد الدواموي يا سبي يا كيري وعنا نقول إسيري طلياني إنجليزي بركي جميستها ودك هاين ده أي كسر وأنا درامي كرتا حاجة ودنيا دفيري هذا ده كصوماليا مركز في الدنيا دارود ودني قفا وياه ودني ما وشيء غلط شيء هذا وين شيء وتبرعها إلهي كنت سياسة كفيرش ما كان عادي يا كفيري قفك وياه وشيء غلط شيء ورديه والصومالي باتاي الصومالي نبدا كوي كبركي ليا ما بكل شيء وربا ما تقانا انتو halkan ka shaqeysto ina uma dhalan halkan intuu ka shaqeysto Soomaaliya intuu ka shaqeysto oo shaqada ka abuurtay halka inuu ku maal geliyo oo dago degsiba ka samaysto xasanka hadda madaxweynaha dalka Soomaaliya ka ahaa 4 sano soo dhaafay oo hadda waqtigu ka dhamaaday saakay magaalada Muqdisho deegaan mooye carruurkaas carruurtiisa deganaad oo asagu hadda deganaad كل واحد وضمك على شيء بيقول لك السيرة ده ما كسميستي ودني قصام مصري ودني قحصمين لها بدلان بد بكرسل لها شبلان بد بكرسل لها أساسي قاطو بد بكرسل لها مقدشو بد بكرسل لها وسمرة بد بعض مال بتجله أو دقيقة كم سنة وحكي قبل لها مشاريع كفشل لها يا هالك تيجي لها وبيرتي هبل وملحوينها بيرتي سي قال بس هذا محل سياد بروك السمين أبو جاني معاه سياد بالي هذا هل كانوا داقتي وبيجاش أو داقتي ولا يقنا لاعبوا له والوقتي بيروا له وقصة بيسري نمكي كلاه أصيله كلاه سبيلي حديث ساك حسن الشيخ محمد ودني هاي أو صومالي نبي هاي مجال تبعه مو تبعه مو ميل السمايس ما السمايس لقمة يا باكو سووا حكوا قال سبكة وحاكيني أيوة ديدن ضد كان إسكوتشيس كا أو إسكو أبتر سنة ولي بعضنا وادو قيدين ويل يصدق جيس بأهايان دير يدارود وايو دمبردري أيديو أو أود حالي أووغيو أو فرع عادي أو فرع كيدي أنهاي دير بياهي حي أوكي مرك dadkaas marka isku familka ayada la diiday yahay baadad madow ah nal ku soo tuuraaf Soomaaliga la bar bagaas aliya hawi aliya wuxuu ahaa meelaha waxay ahaayeen aduu meelaha salaa keenay waa baabiinta hawada Soomaaliya macno caasad moodiyana maqlay hawi ahaa marka ma ahayn hawi magaca waa dhow waa la bedelay waxaad ku ogaanaysaa marka Soomaaliya inay ahayd dir iyo daarood hawiyo wax la yiraahdaa ay tahay gumaystii inuu keenay dadka Soomaaliya oo halka wixii kaga farcameen
oo lagu beeray marka waxaan ogaanaysaa darrada uga dan lahaayeen dhanka caasimadda xijiyeen si mar walba si ay u beermaan caasimadda u sheegtaan halka ay talada dalka wax kaga qabtaan maadaama ay ahaayeen dad shisheeya oo dalka lagu beerayo meelihii kale iyo dadka dhexdiisa laguma beerin gees baa la xijiyey geestii baana caasimaddii laga dhigay halkaa markii caasimaddii laga dhigay oo xamar ay noqotay caasimaddii baa hawiyo lagu beer hadda fiiriya waxba in daliil kuga ah qofka daaroodka ah markuu qabto xukunka caalamkoo dhan dee dawlad inay dhalatay arkayaan inay wax ogsoon yihiin oo buuq hayaan baa idinkaga sheekaynayaa dawlad rismi ah inay dhalatay oo dad wadani oo dadka Soomaaliyeed asalkooda la yaqaanay oo aan ahayn kooytadii dadkii la keenay aan ahayn ee asalkii dhaladka ahaa inay yihiin marka bay ogaanayaan muqaawimkii iyo naqshadii dawlad lagu tacaamul jiray bay kula imaanayaan sharciyad buu qofku soo sharci baa waddanka kala shay leeyihiin qawaaniin buu soo raacaya bas inta qofka daaroodka kursiga fadhiya qawaaniintaas baa lagu kala hagmaya qof hawiyaha ma fariisto kursiga hadda xasan shiimaye oo ma ugu dambeeyay yaa qawaaniin kula dhaqmay caalamka carsheega lagumana soo dhaweeyo lagumana dhaqmo laguma ictiraafo xaraan bay ka tahay waxaa loola dhaqmaa sidii qof shisheeya dalka Soomaaliya uma dhalan weey marka waxbay hooyaan barka buugaag bay hayaan annaga naga qarsoonay buugaagtii bay soo saareen marka in qof hawiyahu awsan ahayn wadani saa ku ogaada dalkaana uu dhalan dhaqanka ay sameynayaan iyo caalamku sidoo ula dhaqmayo bal fiiriya waxyaalaha waxa jira runta sheegaya runta xaqiiqda qof hawiyaha ma fariista de sharciyadu mara dalku sharciyadu waa ka halo qof daarood uma qabta sharciyad baa timi qofkii wadaniga dalka iska lahaa xukunku fadhiyo way laguma ciyaari karo dalka marka waa la banaynaya xaraan bikata dalada lagu dulwadaya waa la istaagaya ixtiraamka la siinaya madaxweynaha wax soo dhaweynaya madaxweynaha ra'iisul wasaarihi wax soo dhaweynaya ra'iisul wasaarihi meeqaamka anka ku hawiyaha haduu yahay ra'iisul wasaaraha waa aragtay markii qof daaroodu madaxweynaha ra'iisul wasaaraha xitaa shuruucda caadiga ah maraya ra'iisul wasaaraha soo dhaweynaya هذا الرئيس الوزراء يا سودوي ما ارتاح سودوي حسن الشيخ ما ارتاح wax soo dhaweynay wali yaarkay madaxweynaha intuu ku soo dhaweeyo hor istaagay soo dhaweynay yaarkay arabi cajab قال يا مدو قال يا اسلام مدو يا عدان يا arkay lama